wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay yaahu arre oo ana fafadhiya hayehe miyaad fafadhidiina ii warramahe war annaga nabad weeye ma dabeecaddaada sidaani mase waa nala dirirsantaaniyow ilaahay ha ku doorso dad baa mooda habaar ducana waabay noqotaa war kuu warramayniyow waad qallafsan tahaye waxaan maqli jiray dhadhan shaawaalan dhargaana ka daran madaxweyne xasan sheekh madaxweynihii hore meel qof caadiyoo dhaan wataa ka xishoon lahaa buu fadhiistay xisbi baan guddoomiye la iigu doortuu yidhi weliba 6 bilood oo ku meel gaara kaliya madaxweyne Soomaaliyeed nin soo maray inuu xisbi siyaasadeed 6 bilood oo ku meel gaara guddoomiye u noqdo waa igala qiimo weyn aniga madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga DPDU ahna xubin ka tirsan baarlamaanka xildhibaan xasan sheekh maxamuud intaas dagoodinka ka badan oo uu qabalahay xayta war madaxweyne xasan sheekh guddoomiye xisbi haba ma xume xisbigiiyaa lagu haystaa cabdullaahi sheekh xasan wuxuu yidhi magacaanana iskale xisbigaygaana la yidhaah hadda ka horowna igu xiray xasan sheekh asagoo madaxweynaha marka maanta inuu magacaygii qaato ma aqbalayo maxkamadaana la tegaya warnimayow xasan sheekh xisbiyada midoobay ee uu guddoomiyaha u yahay waxaa ka mid ah xisbigii daljir hadda ka horna doorashadiisii ayay ballanka uga baxeen marka sidee mar dambe laysku aaminayaa war taas maylere walaagi tabi ku tab walaagi kooyow suga leere war ma ahana mahmaayada ha buurlaabin wax tagay tigsimaad mala weeye wax joogana argaagax ma galaan aryaa war waxaa la yidhi aanadaada dabadooda la qabtaa warnimayow nimanaan is aaminsanayn oo hadda ka hor isqayaamay haddana wax isku qabanaan loogayn sidee masiirka ummadda loogu aamini karaa xowyaha masiirku ma xukunkaa leesla qabaa warnimaya waxaan idin weydinayaa siyaasiyiinta midoobay ma kuwa xanaaqsan baa mise kuwa faraxsan war kuwaasi waa kuwa dhexdhexaada oon dhanna raacsanayn war xisbigii wada jira cabdiraxmaan cabdishakuur xisbiyadii midoobe ma ka mid yahay mise waa ka maqan yahay war xisbi mar hore ka gudub leeyahay hukuumadda hal yente marohay war beenta ka daa dadka soo bees waa ilkama mid ahayna barotolyan buu ahaa yow heella baratamayay war sheekh sharaf xisbiyada kuma biirin waa ka madax bannaan yahay warniyo cabdalla deerow saqaalaw naxariisto mar hore ayuu dhintay war guddoomiyaha xisbiga talada haya ee Soomaaliland waa Muuse Biixi Cabdi xasan sheekh naader lamaba mudoobinba mayagaas ba arkay aryaada Muuse Suudiya Cabdi qaybdid aqalka sare ka tirsan yihiin beentaan iska dhaaf war farwal waa madaxweynaha hore ee Puntland war madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe xisbi islaam buu ka tirsanaa jiray war aamina mad mursal musharaxiinta wawiina koonfur galbeed ka tirsanta war Yuusuf Baadiyo nin liiraado musharax koonfur galbeed waaye ninkii iska dhigay ra'iisul wasaare Khayre iyo Kim Jong Un ka Kuuriyada Waqooyi baabuur buu intuu isku xiray oo dhalinyaro yiraahday dhinac orda ariya Khayre abadkii baadiye matig ee baadiye iyo Kim Jong Un kala sik waraadal wasiirkeygii maaliyadda Soomaaliland wuxuu la soo hadlay wasiirkan maaliyadda qoladan jaarka nahay ee Beyle waxaanu ku yidhi war maalmahanba adigu albaabadu ay idin furan yihiin waa bal annaga wuxuu la soo gaargaarsi duulduul la ahaatee warniyo Saad Cali Shire wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayuu ahaa ninkii yiraahday Soomaaliya kama go'ayna waan kala baxaynaa war ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi wuxuu yidhi waxaa la gaaray xilligii madaxweyne Farmaajo oo Hargeysa ka degi lahaa war miyuu nuqood iska hormariyay warnimayo hormaysaan maanta Talyaaniga la qarxiyay maxaa noogu jira ununka Talyaani la qarxiyay war Roomil ka qarxiyay Milano war Muqdisho ka dhacay qaraxa warkan dhex gelinine war waxay lahaayeen ana tagay meesha non sono non morto noi ancora viva ay lahaayeen ayay kaarijuja maalinka ka bari maxaad u dhiin adigana testatiiba dal ordino istatito bikoomika nasionale xaan loo dhihin war maxaa loo dhihi waayey meelia morto vivo war basiinka galdamay dumaana ate oo jaamay wala erlafadaayna manta adigu dumaalkan iyo iska dhigtay adigu ay wala Talyaaniga taqeen warnimada ayaantan baashi bajaaj la oran jiray balaayaa ku soo baxday hadda burcadii magaalada dhibaatada ku haysay iyo tuugadii baa bilaabay inay dadka ku afduubaan kuna dhacaan waradar bajaajka Soomaaliland waxa looga yaqaanaa saqataamad
warya bajaajkiisin sheegasan baalgamuundo badana derbiya ku kiiday gefka hal iska dhaafoy walba kuulay cali banjareeyu ekeedo khayrka koramahayn anigu weligaa ha korin hadalkii bataa waxaa la yidhi haan ma buuxiye bajaajka reero badan ayaa biisha dhallinyaro badanna shaqay u tahay ha laga daayo dulmiga ee fidnada ay dadka kula meeraysanayo shirqoolka aryaadhaha wariyihii tooxow la dhahaya saxaafadda wariyaha xaq dhowr ee ayaantan kula mashquulsanaayeen xala saqdi dhexaa la deeyaa la yidhi war maxaa loo soo daayey kursigaabuu xagga hore kaga fadhiyey war baroortan walmatara bilaayi faylamaniin la haytan baroortanku waa boolaha ka dhehaylanka markii hore horta maxaa loo xiray hala soo daaya ma xume adeer wuxuu qaydkeenni maahane waa nin maxbuusa horta markii hore maxaa loo xiray war aliyawshan sana ka hor la dili maylan dili leyroogasana lankoob la hadhiya alxamdulilah meertaana war gudoomiyihii degmada xamed weyne cumar shariif jaag wuxuu yidhi unuka waa dulqaadahoynaa madaxweyne farmaajoan ka warsugoynaa wallaahi bilaahi tallaahi banaadir haddii xaqaynan ka heli wayno wallahi waxba arkaysiin almiino alla yareeyo miyuu ilaabay maamulka degmada xamed weyne waxay yidhaahdeen ciidan badanaan u baahanna war makoodku ka yidhi mise afarridoodka war taliyihii booliska bashiir ameerika wuxuu yidhi kawaanka malaaga in la xidho aniga amruu yidhi sababtooda dhiigga ka soo baxa kawaanka libaaxaa soo raacay markaasuu dadka eber ka dhigaya waa ii kow libaax kawaan jooga wareedha agoontii booliiska ee jenaraal cali gaab hayey muxuu ka yidhi taliyaha booliisku kuwaas aabbayaashoo dagaalkii beelahay ku dhinteenou ka yidhi war dagaalkii beelaha boolis ma jirina beenta iska daa war taliyuhu beelu u yaqaanaa waxa dad beledka jooga ma beeshaan yaa mugaxaana loonnaba war libaaxbad kama soo baxo dadna bannaanka kuma cuno libaax badeed makawaanka lagu xalaalaysanaya waxaas muga ma beeshaan yaa xalaalaysata haddana dadkadaba idinkaa diray idinkaa laayey war cadaadiga iga tag karaankurtaadu ha koorise